madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa hub iyo gaadiid ku soo bandhigay degmada Qandala oo ay sheegeen inay ka qabsadeen kooxda ay ku tilmaameen inay ka tirsan yihiin Daacish. warkani waxa ay noo faafahinaysaa Faadumo Taxadar. socdaal uu ku tagay madaxweynaha Puntland iyo wafdi uu hogaaminayo degmaxeebeedka Qandala ee gobolka Bari ayaa waxa ay ku soo bandhigeen hub kala duwan kuwaas oo isugu jira qalabka wax lagu qarxiyo saanada military iyo agabka ay ciidamada howlgalka ka waday degmadaasi ay ku soo qabteen kooxo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Daacish. saraakiisha ciidamada howlgalka ka waday degmadaasi oo madaxweynaha Puntland uu ku amaanay sida uu sheegay siday uga guuleysteen kooxo ay dawladdu ku sheegtay in ay ka tirsan yihiin kooxda Daacish. dibadda dadka u geysteen hay'adihii dawliga ah wixii yaalayna waa qaateen waxna waa jajabiyeen dadkii shacabka ahaa guryahoodii bay bilaqaysteen oo hadda dumarkii u dambeeyay ay iga dacwoonayeen ribka ay ku sameeyeen ilaa xadka uu leeyahay inaan qiyaasi karinin magac islaamna oo ku qaraabanaya marka waad garan kartaa dad islaam ahayn dadka gowracayo oo bireynaya dadka dhibaateynaya waxaan shida ahayn magaalooyinka biyaha ka jaraya dadkii guryahooda bilaqaysanaya caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo dadka wixii loogu adeegayo burburinaya waad garan kartaa inaysan marka islaam aysan shaqo ku lahayn ciidamada waan saragnay waana booqday waana saragnay waana u tagay geesiyaal weeye dhulkoodii dib iyo dheef waxay qabaanba ugu adeegayay si fiicanna u howlgalay cadowgiina ka guulaystay waxa yaroo kasii dhimanna insha allah ilaahay idinka dhammaystiri doona annaga Daacish ma wada deganaanayno dhulkana ma ayna dhulka annaga iska dhulka yagii weeye Ciraaqna lagama laha Syria lagama laha meel kale lagama laha Puntland baa iska yahay Soomaali marka wixii hadda dambe oo sii jirjirana waan dhammaystiri doonaa. 2 bil ka hor ayay ahayd markii gacanta Puntland ay dib ugu soo noqotay magaalada Qandala ee dadkii deegaankaasi ay guud ahaanba isaga barakaceen balse hadda ayaa dadka deegaanku dib ay ugu noqonayaan degmada Qandala. waa Faadumo Taxadar, waa Bari TV, Boosaaso. wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa waxa xilka loogu qaaday gudoomiyaha degmada Beledweyne Macalin Cusmaan Qalaafow iyo waliba sidoo kale gudoomiye ku xigeenka dhinaca maaliyadda maamulka degmada Beledweyne iyo gudoomiye ku xigeenka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Cali Cabdullaahi Cusuble isla markaana xilka loogu qaaday xubnahan ka tirsanay maamulka degmada Beledweyne iyo sidoo kale maamulka degmada Matabaan ayaa waxa warbaahinta u aqriyay mas'uul ka tirsan maamulka degmada Beledweyne. bismillaahi raxmaani raxiim waxaan halkaan idinku soo gudbinayaa mas'uuliyiin cusub oo loo magacaabay degmada Beledweyne kuwaas oo kala ah gudoomiyaha degmada Beledweyne waxa uu madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle u magacaabay Maxamed Axmed Ibraahim oo lagu leeyahay Food Cabde. sidaa darteed waxa kale oo la magacaabay gudoomiye ku xigeenka dhanka maaliyadda ee degmada Beledweyne waxa loo magacaabay Mudane Qadar Xasan Afrax. waxa kale oo madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle oo magacaabay gudoomiye ku xigeenka degmada Matabaan kaasoo loo magacaabay Ducaale Aadan Cabdi Garaaso. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhinaca kale gudoomiyaha degmada Beledweyne Macalin Cusmaan Qalaafow
ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay xilka qaadista lagu sameeyay isla markaana uu la shaqeyn doono gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay degmada Beledweyne aad ma santiin warkaas war aad u fiican waay aan hadda ilaa waqtiga ma hayo dekreeta ka soo baxday madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Cali Cabdullaahi Cusuble Siyaad laakiin waxaan ka maqlay hawada in maamulkii la bedelay oo horeeyay gudoomiyaha degmada Beledweyne aadan u faraxsanahay hadii wadada soo gaarto wada shaqeyn shacab iyo wada shaqeyn maamul iyo in ay dadka reer Hiiraan reer Beledweyne waqtiga wadada soo gaartaan uu baaqi doono in la shaqeeyo gudoomiyaha cusub ayaan mari doonaa hadii reer hal ka dhigo markii soo gaartay wadada Cabdishakuur Maxamed Xasan waa Bari TV Beledweyne